تنازل كي يقول وايدين تنازل كله هو تنازلاي انت صجر يا تنازل دين سمي وتنازل كيشانات madaxweyne farmaajo waxa uu khudbadiisa golaha shacabka ku xusay inuu tanaasulay in ka badan 7 jeer haddaba aan dib u eegno khilaafyadii isaga iyo madaxda kale ee dawladda soo kala dhaxgalay xiisadii jahawareer ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo soo kala dhaxgalay labada garab ee baarlamaanku u kala jabay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari oo BBC-da u xaqiijiyay inuu iscasilayo war hala kala roonaado ayaa ku soo koobteen talada shacbiga soo gudbiyay intaasan ka qaatay saadaradeed ayaan go'aan uga gaaray gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa maanta ka guuray madaxtooyada isagoo u wareegay hotel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde kadib markii laga xayiray xildhibaanadii mas'uuliyiintii iyo dadkii uu ku aqbali jiray hoyga uu ka degan yahay madaxtooyada rasmiga ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta riday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa isagoo ka maqan magaalada Muqdisho xaaladda jahawareerka ee ka taagan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya kadib markii uu iscasilay madaxweynihii maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan Shalayto ciidamo ka marqaata dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo ka kaxaystay Muqtaar Roobo Abu Mansuur oo ahaa musharax madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed markii ciidamada dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa ururka Ahlus Sunna wal Jamaa uu dagaal ku dhexmaray magaalada Dhuusamareeb kaasi uu dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo Ahlus Sunna waxaana dagaalka uu geystay khasaaro gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida muuqaal lagu baahiyay warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa hogaamiyaha ruuxiga ee Ahlus Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan waxa uu ku sheegay in ay u tanaasuleen danta shacabka galmudug inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed waxa maalintii labaad xidhan wadooyin muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho sababa aan la shaacin waxaana saaka shaqadii duqa caasimadda laga eriyay Taabid Cabdi Maxamed oo xilkaasi hayay 9 bilood ee la soo dhaaf farmaajo waa laga adkaadaa ee weligii ma tanaasulin